abaara baahsan iyo biyo la'aan saameysay dadka iyo duunyada ayaa ka taagan qaybo ka tirsan gobolka Sanaag sida warkan inuu sii qaada dhigayo wariyaheena Axmed Canshuur. xaalad abaareed oo aad iyo aad u adag ayaa ka jirta deegaankani gobolkani Sanaag oo saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada iyo bulshada kale ee ku nool magaalooyinkaba. saaka ayaa TV-ga caalamiga Somali News TV waxa uu booqday ceelka ay ka cabaan dad iyo dunyaba ee ku yaala magaalada Ceelbe gobolkani Sanaag maadaama bulshada xoolo dhaqatada ku nool gobolkani Sanaag degmada Ceelbe halbowlow tahay. waa kuwan iyagoo ka waramaya xaaladda jiilal iyo abaartu say u saameysay bulshada xoolo dhaqatada. meesha aan fadhiyo waad aragtaan waa ceelkii la oran jiray ceelgu. waxaan dul fadhiyaa jiimbarkii xooluhu ku cabbi jireen. geel iyo ari iyo intaba ay joogi jireen iyo dadka ka dhaxow. waxaa jira waqtigu uu adag yahay. ilaahay baa saari kara. ilaahay baanu ka baryanaa in raxmaad dhaqsaale oo degdeg ah noo keeno. waxaan bari ka fiican la baryaa ma jiraan. waxaa biyuhu ma oran karno waa ma jiraan. haddaanu niraahno been baanu sheegayna laakiinse way yar yihiin. waxay ka yaraadeen madaqadan keliya ma cabto ceelakan. magaalooyin kale oo ducaha naga xiga oo baran galool xagiisa dhinac kasta afarta docod ee loo dhaqaaqaba naga xiga way laga yimaadaa. waxaa laga soo doontaa biyo macaan baa loo soo raacaa. waxaadahayna hore waa u dhici jirta waa la iman jiray. iyo dhulku haddan xaalufku waa iyo aad bay u soo waxaysan yihiin. ceelashu waa biyihii waa yareeyeen. kaliil baa timid bishii saddexaad baa lagu jiraa. xooluhu way soo gaadhi waayeen ceelkii. biyihii ceelasha looga qaadi jirayna way yareeyeen. way ahaan jirtay bisha saddexaad. dhulkuna waa xaalufu jiray. biyuhuna waa yaraan jireen. marka intaa biyaha waanu u baahannahay. markaa waxaanu leenahay ummadda islaamka ah ama hay'adaha dawliga ah waxaanu weydiisanaynaa inayna gacan qabtaan oo naaftada naga bixiyaan oo biyaha na siiyaan oo maxaan ku raadaayay dee baahi aad u badan ceelasha noo dayactiraan. biyihii baa naga yaraaday. biyo waa haysanaa laakiin waa nagu yar yihiin oo waa na kafayn waayeen. magaalooyinkii mid walba waa loo dhaanshaa baran baa loo. maamulaha ceelka degmadani Ceelbe gobolkani Sanaag Cabdullaahi Dhaaye Jibriil ayaa baahiyaha ceelka iyo culayska saaran ee bulshada xoolo dhaqatada iyo saybi yaraantu uga jirto markaas uu sheegay. wuxuuna sheegay inuu ceelku u baahan yahay waxyaabo fara badan oo ka mid tahay deynamada iyo xadhiga keebilka dabka soo saara inuu aad uga leeto. wuxuuna hay'adaha maxalliga iyo kuwa dawliga iyo cidii danaynasaba uu markaasi ka codsaday in ceelka uu haatan saaran yahay culays aad iyo aad u adag ee lala soo gaadho markaasi qalabkaasi ka dhiman. wuxuuna sheegay inuu matoor keliya ceelkan uu yahay uusan lahayn matoor labaad oo caawina. xilligan sida la wada ogsoon yahay waa bishii saddexaad oo jiilaalku ugu adkaa. waa xilliga cid kasta oo noola ahi ay biyaha u soo arooraan oo isugu yimaadaan. xitaa xayawaanka yaryar, xoolaha, dadka, shimbiraha, bisadaha, cid kasta oo noola ahi waa xilliga biyuhu ugu adag yihiin oo ay isugu yimaadaan oo soo wada doontaan. waa xilliga qorraxdu ay ka dhowdahay meelihii ay markii hore joogtay oo kulaylku uu siyaarada noqdo weeye xilliga kan. waa marka labada geed intaad isaga gudbay sidaas leedahay qorraxda darteed isagama gudbi kartid. sidaas darteed waxay u baahan yihiin wax loo baahan yahay in dayactir ceel. meeshaan ka hadlaynaa waa ceelbu. waa ceelbu iyo Sanaag. waxaa u baahannahay ceelashu waxay u baahan yihiin ceelku wuxuu u baahan yahay dayactir. wuxuu u baahan yahay matoor. wuxuu u baahan yahay daynabo. wuxuu u baahan yahay beebab. wuxuu u baahan yahay waxaa dadku inaanay ceelku iska taagin sidaa jiilaalku. haddii uu ceelku istaago dad iyo duunya waa la waqtigeeya. halkana waxaa isugu yimaada dad iyo duunyaba ceelka kan waa isugu yimaadaan. waa ceelka keliya oo xoolaha iyo dadkuba ay isugu yimaadaan. waxaa loo baahan yahay dayactir degdega in lala soo gaadho oo emergency ah oo aan lagu dirin mashaariicaha la qoro oo la sugo.
ayaa waxaan u baahannahay sidaa darteed in sidii in emergency-ga naloo geliyo oo motor iyo beeb iyo daynabo baan u baahannahay iyo cablekii iyo banalkii intii aan kala hadhi jirin in nalala soo gaaro si degdega nalala soo gaaro. waxa kaloo ay u baahan yahay waa loo baahan yahay in xooluhu bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool gobolkani Sanaag ayaa intooda badan waxay ka cabtaa magaalada Ceelbu ceelka ku yaala oo markaas aan ka fayn karin magaalooyinka ku hareeraysan oo biyaha u macaan u hayo iyo waliba bulshada xoolo dhaqatada ee miyiga degan. waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali News TV degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag.